boqolaal ka mid ah ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn ayaa carwo lagu qabtay Hargeysa ku soo bandhigay adeegyada iyo badeecadaha ay iibiyaan xagga ganacsiga dhaqanka waxyaabaha la soo bandhigay waxa ka mid ah aqal Soomaali iyo alaabta loogu talagalay in gudihiisa laga helo Suleekha Cabdilaahi waxay ka mid tahay dadkii bandhigaasi ka qayb galay BBC la hadashay waxa la yiraahdaa Suleekha Cabdilaahi Abdi Suleekha dheer baa kuma dheerahay waxaan ka shaqeynaa waxyaalaha dhaqanka waxaan sameeynaa dhariyaha wax lagu karsado sharxadaha biyaha lagu cabo koobka sharaabka lagu cabo Allahumma salli ala Muhammad xeeriyaha qaybna ragga sameeya qaybna dumarka sameeya wixii dhooba ee la xiriira sidaan wax la tirayo kala dumarka sameeya qaybta qoraalka ah ee matalan geela imka adarkaysiyo dhiilaha adarkaysiyo maxay heeday koobabkaas waxa soo dhan ragga sameeya oo rag iyo dumarku iskaashi dhexe ayay haayeen waxa dhacday imka guriga dhalin ku jiro ilaa cawdi lagu leeyahay dhulka taalo wax meel uga yimid oo dibadda laga soo iibiyay kuma jiraan waa dhirteena iyo daaqeena iyo maxay heeday wixii ilaahay noo saaray maxay heeday inagu ay ku shaqan leenahay kan waa aqalkii ay noolagu hore u geli jiray ama aabaheen iyo hooyooyinkeen iyo ayeeyooyinka ku soo kacaameen mid labaad markay dhaxantu joogto ama marka roobku jiro waa dugsoona qalab marka kuleelku jirana waa qabow oo doo wax dharjo waxa loogu talagalay ilaahay baa tay noogu talagalay joogaga yaryar marka wax lagu soo dhaweynayo subaga oo kale kan xoqayn baa la yiraahdaa wax lagu urursadaa alaab markaan doonayna imka matalan kan daadsan oo kale marka lagu doonayna qalabkeen ku dhisnaan ubaha iyo dhigaha iyo xakabka intuu miibay naga jireen miibaan ka doonanaa marka geed galoola iyo geedka la yiraahdo maraaga iyo geedka la yiraahdo quraca waxaan ku wili xidid baan ka jaraa si aan u engegin oo baarkooda hore ka goosanaa waxaan isdiraanay idinka engegan dirtiyo anaga lafteeda dhaqaale noogu jiro inuu tixgelinaaba meesha taala oo dhisha waa idinka la yiraahdo saas loo kala iibsadaa say imka matalan kala yihiin masaasadaha la siiyo oo kale waa aragtay inuu kala dheer imka dhishaas oo kale matalan haddii aynu caano ku shubno duqsigu kuma fadhiisanayo waxaanu lahayn awood kaga kaco markuu ku fadhiisto ku fadhiisan lahaa dabadeetana aagtay dhacdo in caana lagu soo qaatana dhidid buu sameeynaya waxaan kugu waxa laga yaabaa inuu qofkiiba xanuun ka qaado biyo ku sameeyo oo ku kordhiyo dhididkii laakiin tani haday doonto way dhanaanaysaa haday doontana saasay ku haynaysaa waa matalan sidaan imka maxay heeday talaagada la isticmaalo kale oo dadka si wanaagsan ma sameynayso iyadu dhidid caani ma dhaafinaysa halkoodii ma baqayaan ma xumaanayaan ma kala baxayaan haddii ugu bataan way dhanaanayaan haddii kalena dhaydaasay haanayaan